أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada channelka Saliidka horna haddii aad waxaad subscribe waxaad ii sharaxaa anigoo Sultays Maxamed Said Amar. waxaan hore ugu soo baxnay similar percentage qaybtii plural rule-ka ama sharciga jamac ahaa. haddana waxaan galaynaa markaasi singular rule oo jamac midka uu yahay markaas singular rule-ka loo yaqaano markaas tenniska labaad. sidaan ognaa rule-kan wuxuu shaqeeyaa waa saddex ku shaqeeyaa waa she he it oo micnaheedu tahay markaas hal qof oo keliya. rule-kan wuxuu noqonayaa markaasi subjective plus verb plus s /es /is plus objective ilaa wuxuu leeyahay saddex marxaladood. stepka koowaad waxaa la markaas if haddii dhabaa ficilka end uu ku dhamaado in y hadduu ku dhamaado y proceed baa ka dambeeya vowel shaqal oo ama non hesitant sounds kuwaan codadka fudud ka mid ahayn aad waxaad ku dartaa keliya oo lamkaas s ku dar while halka markaad joogto lamkaas similar percentage in statement in singular subject yaa markaasi markaad joogteen iska labaad taasoo ay marxalad iska caadi ah ee tahay markaasi keli objective subject ma ku yahay keli ah. tusaale waxaa lagu soo qaatay ego tusaale mar example oo taqaanid play oo ah lamkaas joogta caadiga ah lagu dar markaas isar lagu dar plays cook cookies helps takes cures makes abuses. okay waxaa la markaas pronouns magacyada waxaa kamid ah markaas she he ida kamid ah waxay qaataa marka daas waxaa loo yaqaan leeyihiin kuwo keliya ama singular ah. tusaale markaasi waxaa la markaas she iyada helps waxay caawisaa the poor people dadka faqiiriinta hiya isaga bakes waxa uu duwaa bread markaas roota iyo duwa mar walba marka iyada markaas eats waxay cuntaa rat dool ayay cuntaa bisadii marka the boy markaasi wiilku plays wuxuu ciyaaraa ball kubad. Jamila markaas spoke Jamila speaks waxay ku hadashaa good speech hadal wanaagsan. Hassan cookies waxa uu kariyaa the food markaas cuntada badly suxun. xala markaas qaabka sida loogu dhigaa markaas statementiga for example tusaale the boy wiilku markaas plays wuxuu ciyaaraa ball kubad taasoo ay markaas statement ama marxalad caadi ah. su'aal soo markaas waxa imaan meesha daas imaanayso does the boy play a ball meesha waxa ka bixi marka soo bixi plays meesha waxa imaanayso kaasoo play naqanay waxa imaanayso isku soo bedela markaas daas imaanayso does the boy wiilku play miyuu ciyaaraa ball kubad. su'aal lagu weydiiyay marka sida loogu dhigaa markaas negative ka the boy wiilku does not play ma ciyaaro ball kubad. waxaa la markaas negative question sida loo dhigaa markaasi waxaa la markaas does not the boy play wiilku ma ciyaaro ball kubad taasoo loo yaqaan markaas negative question. waxaan galaynaa marxaladda labaad step 2 insha Allah dila karaan noqbadna haddii aad cusub tahay channelka Saliidka subscribe ina saar si ku soo gaar mar walba garaamada ama tennisada waxaan soo sharxi doonaa insha Allah dila karaan noqbadka qoyska asxaabtan si sheegay si ay kula faa'iideystaan.